nin dhakhtaraha maalmaha ka mida ila soo xiriiray way soo wacay wuxuu igu yidhi dad ganacsato ah ayaa guri weyn kiraystay iyaguna cilmiga waxba kama garanayaan uu yidhi ilaa waxay ka rabaan meeshooda inay ribix iyo faa'iido un ka helaan waa qalabeeyeen gurigii qalabkii loogu talagalay caafimaadka oo dhan ayay u dhammaystireen aniga iyo dhakhaatiir kale ayay kontrakti nala galeen waxbaayalaan kala saxiixannay agreementiyaan kala qaadannay 30% ayaa heshiiska ka mid ahaa ayuu yidhi qofkii aan u dirno baaritaan iyo shaybaar inaan anigu ku leeyahay shakhsiyan haddii qofka dhiig aan u diro haddaan kombiyuutar qofka aan u diro baaritaanka nooc walba uu ka mid yahay noocuu doonaba ha noqdo haddaan qof u diro heshiisku wuxuu ahaa 30% inaan anigu yeelanayo saasaan ku heshiinay waxaa marka dhacayuu yidhi qof bukaan ay imanayo markaasuu wuxuu leeyahay yidhi xalay suulkanaan ka seexan waaye suulkan ayaan xalay ka seexan waayey mas-uulkaad ka seexan weyse iskaanaan u qorahayaa buuri iskaan ayaan u qorahayaa buuri oo laga yaabo $100 inuu ka bato dhiigagga waxaan u dirahayaa yidhi beerka keliyaha laga soo baaran leeyahay waxaan u dirahayaa yidhi qarash hadafkaygiina waxay tahay ulajeedadayga commissionkayga aan ku leeyahay isbitaalka inuu ziyaado oo uu kordho waan ogahay uu yidhi ninkan miskiinkaa suulkiisa waxaa daaweynaya waa $15 iyo $20 wax la mid ninkaa khayr allaha siiyo runtuu iska sheegay kuwa aan runta sheegaynaa jiro ummadda sidaas u gelaya oo u dhibaataynaya waaba nin xalaal miiranaya waa nin iimaan leh ilaahay ha u barakeeyo cilmigiisa waa aniga hayuu yidhi $15 iyo $20 ayaa daweynaya yidhi miskiinkaas markaasaan waxaan gelinaha uu yidhi baaritaan 150 ilaa 200 ka tallaabsanaya daawadiina ay u sii dheeraad tahay wax yaroo basiiduuna ila yimid cudur yaroo basiida uu sheegay wuxuu yidhi wadaadow xalaal ma ii tahay uu yidhi lacagtaas aan sidaa ku qaatay lacagta sidaa aan ku qaadanayo xalaal ma ii tahay waxaan ku yidhi waa dulmi waana khiyaano miskiinkanna waa dulmisay waana khiyaantay liannahu adigoo og qarash uu ka maarmi karo oo wax baahiyo hadda oo daruuriya oo u haysa aysan jirin adigoo og ayaad maslaxaddaadii ka fiirsatay maslaxaddaadii iyo jeebkaagu inuu xoogaa kordho ayaad ka fiirsatay waa xaaraan waa tusaalooyinka ka dhacaya waddankan dulmiga marka dulmiga walaalayaal waa waxa nabaday ama dadka ganacsatada ha sameeyaan ama dhakhaatiirta ha sameeyaan ama kuwa dhiigga xaqdarrada daadinaya ha sameeyaan ama qofka shakhsiga ahi dulmi uu ku samaynayo deegaankiisa ha noqdo waa kuwa waxa nabaday ishan xun nabaday oo hadda aanu u naalno